بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدحوينها جمهورية فضل الكي الصومالية محمد عبد الله فرمانشو دمان مدحدا كلا فرددا مدحوينها على دورتي مستر ديني يا كراش كحيين كيسا انت كلا قفل بماشي وكليهي مدحدي هورا يا كوا هدا هيابا aad baan idin wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan u malaynayaa caawa shaqo fiican baa halkan ka socota waxaana garanaynin inay tahay walqal iyo galbin midkii la odhan lahaa xafladan caleemasaarka ah ee madaxweynaha cusub ee puntland iyo ku-xigeenkiisa waa mid taariikhi ah maanta isu keentay Soomaali aan xusuusan karayo warkii gabanaha Gaaris uu ku hadlayay ee uu lahaa tan iyo NFD waa la joogaa Soomaali way ku dhantay waxay muujinaysaa raad taariikhi ah oo Puntland isbeddelkeedu siduu ku yimaado marxaladaha ay soo martay dawladnimada lagaga dayanayo hooyada ay u tahay Soomaalida cusub ee maanta degan iyo markii horeba inay ahaayeen dad halgankii hore lafdhabar u ahaa waan ku ammaanayaa arrintaa reer Puntland waxaana leeyahay Soomaalida inta kale way ku adag tahay hadda hal cod inta lagu kala adkaado in tartiib lagu kala baxo madaxweynaha hadda xilka ka degay Mr. Gas waxaan maleen farole madaxweynihii ka horreeyay hal cod buu kaga tegay oo la isku hayay uu khaldamay iyo ma khaldamay taa macnaheedu waxa weeyaan reer Puntland siyaasadda markii hore la jiido laakiin cadka markii la qaado sidii bisadoo kale meel ka istaageen waxaan leeyahay waa arrin u baahan Soomaalidu inay ku dayato madaxda halkan fadhidana kulli inay u noqoto taariikh iyo darsi laga barto aad baan idinku mahadcelinayaa soo dhaweynta qadarinta iyo qiimaha badan waxaan leeyahay martibanihin gurigeygii baan joognaa waad ku mahadsantihiin intaa haddaan kaga tago Soomaaliya waxaan u malaynayaa maanta waxay gaadhay xilligii ay taariikhda dib u sixi lahayd waxay taagan tahay xilli la isweydiiyo war xaggeen ku soconnaa waxay taagan tahay xilli qof waliba uu qoro qalin iyo warqad intuu qaato maxaad ka tagaysaa oo legacy ah dadkan maxaad uga tagaysaa bari maxay taariikhda kugu xusi doontaa nin kastoo halkan fadhiya maanta oo magac sheeganaya oo magac lagu magacaabayo hubaal waxaa bari oo aad u dhow inuu ka tagayo laakiin waxa uu kala tagay waxay noqonaysaa shay qoran maanta madaxdii Soomaaliya soo martay oo madaxweynayaal ay nagala fadhiyaan waxaan filayaa nin walba inta talaabo oo qaaday waa la garanayaa kuwa maanta joogana bari taariikhdu way qori doontaa iyadoo waqtigeenu sidaa yahay aan ku xisaabtanno aan garanno waddanka aan xukunaa midka uu yahay aan garanno boogaha shacabkeenu ay leeyihiin aan garanno taariikhda waxa aan uga tegayn taasaa waxay inoo tahay mid rasmi ah oo warkii Islaan Ciise daboolaya oo isku waxaynaya waxay Soomaaliya ku socon kartaa wada tashi isqancin istixgelin is-ixtiraam dawladda federaalkii waxay leedahay in lagu ixtiraamo shaqada ay leedahay mas'uuliyadda ay leedahay waalidnimada ay leedahay inay tahay Soomaaliya cidda matalaadda dhabta ah ku leh dawlad goboleedyadana waxaa lagu leeyahay inta iyagu ay xukumaan mas'uuliyadda ka saaran in iyagana ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna kula xisaabtamayo ilaa ninka tuulada joogay qof walba mas'uuliyaddu in bay gaaraysaa aabaha guriga joogay mas'uuliyadda qayb uu ka qaadanaya waxaan aad u soo dhaweynayaa in aan garanno isku duubnideenu waxa inoo tarayso inaan garanno khilaafku waxa uu dhalin karayo inaan garanno kala maqnaanshaha iyo kala fogaanshaha iyo warka la kala qaadqaadayo waxa uu dhalin karayo natiijada uu keeni karayo waxa sheegay loo baahan yahay waxay tahay
inaan isu nimaadno iscalool xaadhanno wax isweydiinno shaqada gudaheeda in lagu xisaabtamaana ceeb ma aha haddaan la helin xisaabtan iyo waxaan see muxuu waxaan ku khaldamay ama muxuu sidan ku yahay wax badan baa inaga halaabay sidaa daraaddeed waxaan mar labaad soo dhaweynayaa oon aada ugu raacsanahay warkii islaan ciise iyo saaxiibadii iga horreeyey waxaan rabaa garow waan wada joognaa marka hore in la iscafiyo waad garan kartaan dadku inay shixno ku kala tagaan oo wax caloosha isugu hayaan dhibaatada ay leedahay in shaqada la isku canaantaana ceeb ma aha qof walbana qadarin iyo xushmad buu isku leeyahay reer garoowe waxaan leeyahay wax laydinkaga daydo mudan baa maanta jiro fara badan aad baan idinku mahad celinaynaa madaxweynaha cusubna waxaan ilaahay uga baryaa inuu xilkiisa ku asturo iyo ku-xigeenkiisa reer puntlandna awalba way shaqo fiicinaayeenoo way la shaqayn jireen in si fiican loola shaqeeyo annagana waxaan rajaynayaa inaan darsin ka qaadanno oo ay noo noqoto wax cid waliba ay sidaasoo kale ugu dhaqanto oo doorashada lasoo qaado laydhaa aleelahi reer garoowe iyo siday doorashadooda u dhacday waa inay meel hebloona u dhacdo saasina u dhacdo madaxdii hore waxaan leeyahay allah idinka siiya khayr wixii aad soo qabateen tan iyo cali maxamed geedi ormalan ra-iisul wasaare madaxweynihiisa allahu naxariisto uu dhintay iyo inta kale hadda xilaalka haysaba kulligiin waxaan leeyahay guul baan idiin rajaynayaa reer garoowena guul baan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu